Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii gorfaynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah FA-ga Ingiriiska oo Chelsea kusoo rogay ganaax Lionel Messi oo dib u qabtay hogaanka gooldhalinta MLS-ka isku aadka wareega 16 tartanka Carabao Cup oo la soo saaray Lamine Yamal oo isbitaalka ku booqday Gavi oo jilibka laga qalay Manchester City oo xidig miiska u saartay 120 milyan Arne Slot oo shaaciyay qorshaha ugu weyn ee booska ugu bedelay ciyaartoyda qaar Arteta oo sharaxay sababta uu Saka si degdeg ah ugu bedelay Liverpool oo ka jawaabtay xiisaha Real Madrid ee Gavanberg Kobe Mainoo oo arrin la yaab leh sameynaya si uu u kasbado booska koowaad ee kooxda Liverpool oo ka jawaabtay xiisaha Real Madrid Champions League Federico Chiesa oo helay fursad uu kaga mid noqon karo kooxda Liverpool Ashraf Hakimi oo beeniyay warar markaasi laga sheegay ciyaaryahanka aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa lagu ganaaxay 25,000 kadib dhaqankii ay ku muujiyeen kulankii Manchester United ay garaacday horyaalka sida uu sheegay Daily Mail Blues ayaa qaadatay 6 kaar oo jaalla intii lagu guda jiray ciyaarta mid ka mid ah waxa la siiyay tababaraha kooxda Enzo Maresca halka goolhayaha Roberto Sanchez Hassan toosa loo taagay sida ku cad xeerka FA-ga koox kasta oo qaadata ugu yaraan 6 jaalle hal kulan gudaheed waxa lagu ganaaxayaa lacag ganaaxa oo kordhaysa haddii ay ka gudbaan ama ay sameeyaan mar kale sidaas oo kale xilli ciyaareedkii hore Chelsea ayaa ahayd kooxda ugu kaararka badan Premier League iyagoo 3 jeer dhaafay 6 kaar oo digniina waxaana lagu ganaaxay 25,000 50,000 iyo 75,000 3 jeer oo ay dhaafeen xadkii loogu talagalay kaararka weeryahanka Inter Miami Lionel Andres Messi ayaa 2 gool dhaliyay kulankii horyaalka ay kooxdiisu 4 gool iyo waxba ku karbaashtay New York City taasi oo ka dhigtay inuu mar kale hogaanka u qabtay tartanka gool dhalinta MLS-ka xidiga Argentina ayaa haatan leh 24 gool 23 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan Messi ayaana mar kale hogaanka u haya liiska gool dhalinta isagoo ka sarmaray weeryahanka Los Angeles Dennis Bergkamp kaasi oo leh 22 gool kadib 3 ley uu ka dhaliyay kooxda Real Salt Lake Bergkamp ayaa ciyaaray 28 kulan kaalinta saddexaad waxa ku jira weeryahanka Nashville Sam Zurugi kaasi oo dhaliyay 21 gool 31 kulan Messi ayaa guud ahaan urursaday 38 dhibcood 24 gool iyo 14 caawina kaliya 23 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Mareykanka waxa la sameeyay isku aadka wareega 16 Carabao Cup xilli ciyaareedka 25-26 kadib dhamaadka wareega saddexaad ee tartanka ciyaaraha wareegan ayaa lagu wadaa in la ciyaaro 27 Oktoobar natiijooyinka isku aadka ayaana sidatan Arsenal waxay ku beegantay Brighton Brisbane Town waxay ku beegatay Brentford Swansea City Manchester City Newcastle iyo Tottenham Wolverhampton iyo Cardiff Liverpool iyo Crystal Palace Wolverhampton iyo Chelsea Wycombe Wanderers iyo kooxda kubadda cagta ee Fulham Lamine Yamal ayaa isbitaalka ku booqday saaxiibkiisa kooxda Barcelona Gavi kadib dhaawac culus oo soo gaaray ciyaaryahanka qadka dhexe reer Spain waxaana la xaqiijiyay in Gavi uu garoomada ka maqnaan doono 4 ilaa 5 bilood kadib markii qalliin kale oo jilibka lagu sameeyay sidoo kale kooxda ayaa doonaysa xal waara oo dhaawacyada soo noqonaya kooxda Barcelona ayaa si dhab ah u go'aansatay in Gavi mar kale lagu celiyo qalliinka kaasi oo lagu sameeyay isla jilibkii 23 ay joogto ka soo gaartay dhaawac ayuu ku maqnaa ku dhawaad hal xilli ciyaareed hadda mar kale waxa uu bilaabi doonaa waqti dheer oo soo kabasha markii hore Gavi ayaa seegay 58 kulan intii uu ka soo kabanayay dhaawicii ACL-ka waxaana hadda la saadaalinayaa inuu seegayo ku dhawaad 30 kulan oo kale maadaama Barca ay wajahayso kulamo badan oo la liigaha Copa del Rey iyo Champions League kooxdu ma qaadan doonto halis waxaana qorshuhu yahay in dhaawacaasi mar kale uusan ku soo noqonin mustaqbalka dhow Gavi ayaa fariin dhiirigelin ugu diray baraha bulshada oo yiri qof kasta oo yaqaan uu og yahay inaan soo laaban doono muddo intay doonto ha qaadato si fiican ayaan u difaacayaa Barca ilaa iyo dhamaadka geesiga dhabta waqtiga ayaa sheegaya waad ku mahadsantihiin dhammaan fariimaha taageeridda iyo jacaylka leh
taageeridaasi waxaa ka mid ahaa ciyaartoyda kooxda oo isbitaalka ugu tagay si ay niyadda ugu dhisaan xidiga. Lamine Yamal, Pedri iyo Ronald Araujo ayaa booqday Gavi inkastoo wejigiisa laga dareemaya xanuunka, haddana sawir ayuu la galay. Lamine Yamal ayaa isna fariin u diray Gavi isagoo yidhi, geesigayga shaki iguma jira inaan si dhaqsa u soo noqon doonto sidii ugu fiicnayd, waxba kuguma adkaan karaan, dhammaanteen xoog ayaan ku rajaynaynaa, waan ku jecelnahay. Alexander Barda ayaa ku daray, waad ku soo laaban doontaa sidan si ka wanaagsan. xidigii hore ee Barcelona kuna guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or-ka Ousmane Dembele ayaa isna yidhi, adkayso walaal, waxaan rajaynayaa inaad si dhaqso ugu soo kabato si aan mar kale ku arko adigoo garoonka ku raaxaysanaya. Warbaahinta Spain ayaa sheegaysa in kooxda reer Ingiriis ee Manchester City ay diyaarinayso dalab dhan 120 milyan si ay ula saxiixato xidiga qadka dhexe reer Portugal João Neves, kaasi oo haatan ka tirsan Paris Saint-Germain. sida uu qoray Bogaviges, maamulka Manchester City ayaa Neves u arkay bedelka mustaqbalka fog ee Rodri, iyagoo doonaya inay heshiis la dhammaystiro xilli dhow si qadka dhexe ay ugu xoojiyaan ciyaaryahanka da'da yar karti badan leh. si kastaba warbixinadu waxay tilmaamayaan in heshiiskan uu wajihi karo tartan adag, maadaama kooxo waaweyn oo Yuruba ay sidoo kale xiiseynayaan saxiixa ciyaaryahanka 20 sano jirka. Neves ayaa ku biiray Paris Saint-Germain sanadii 24 isagoo kaga yimid Benfica qiimo dhan 65 milyan. tan iyo markaasi waxa uu u saftay kooxda 63 kulan isagoo dhaliyay 10 gool, isla markaana caawiye ka ahaa 10 kale inta kooxda uu siiyay. muhiimadda daafaca dhexe ee Liverpool Ibrahima Kanouté ayaa sii korortay kadib markii daafaca xagaagan ay la soo iibiyay ee Giovanni Leone uu jilibka dhaawac ka soo gaaray kulankii Carabao Cup ay Reds ka badisay Southampton. dhaawaca Leone ayaa sidoo kale soo cusboonaysiiyay ka shalaynta Liverpool ee ku aadan guuldaradii ay kala kulantay Marc Guehi maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga. Guehi xidiga Ingiriiska caalamiga ayaa noqon lahaa tartamo xoogan oo garabka Virgil van Dijk, hase yeeshee hadda Joe Gomez oo daafaca dhexe kaliya ayaa khibradda sare haystaan, taas ayaana sii kordhinaysa fursadda Ibrahima Kanouté uu ku sii joogayo kooxda booska koowaadna uu ku haysto. si kastaba mustaqbalka Kanouté ee Anfield kadib xilli ciyaareedkan weli lama hubo, maadaama heshiiskiisa uu dhacayo xagaaga dambe. taasi macnaheedu waa in heshiiska hordhaca ay la geli karaan kooxaha ka baxsan England 1 January. sida uu sheegay wargeyska loo yaqaan The Athletic, Arne Slot ayaa sidoo kale u arka Wataru Endo ee qadka dhexe iyo Andre Robertson oo daafaca bidixa inay buuxin karaan booska daafaca dhexe haddii xaalad degdeg ah ay timaado. Ryan Wilson oo 24 sano jir kana soo baxay akademiyadda Liverpool ayaa sidoo kale bedel kala, inkastoo tan iyo May 2021 uu ciyaaray kaliya 19 kulan oo heer sare ah isagoo xilli ciyaareedkii hore amaah ku qaatay kooxda heerka afraad ee Morecambe. tan iyo markii uu suuqa xagaagan xirmay, fursadda ugu badan ee Liverpool ay heli karto Guehi waa bilaash marka la gaaro suuqa kala iibsiga xagaaga, maadaama heshiiskiisa haatan uu dhacaya xagaaga dambe. si kastaba lama hubo dhaawaca Leone uu soo dadajin doono qorshaha suuqa kala iibsiga ee bisha January. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta uu Bukayo Saka uga saaray ciyaarta qaybtii labaad xilli Gunners ay 2 gool iyo waxba kaga badisay Porto-Vale kulankii wareegga saddexaad ee Carabao Cup. Arteta ayaa cadeeyay in bedelkiisu ahaa mid qorshaysan, isla markaana Saka uusan la kulmin dhaawac cusub. xidiga xulka qaranka England ayaa ku bilowday safka hore ee Arsenal kulankii ka dhanka ahaa kooxda heerka saddexaad ee Liga 1 isagoo garoonka uu ku jiray kaliya 61 daqiiqado yar ka hor inta aan la bedelin. Saka ayaa lagu galay qalad culus kaasi oo kasabtay in Arteta uu xidiga si degdeg ah garoonka uga saaro si aan looga faa'iideysanin dhaawac kale. waxaan doonayay inuu ciyaaro ugu badnaan 60 daqiiqo, wuxuuna ka soo laabtay dhaawac culus mar kale, waxaana intaasi uu sameeyay si taxadar leh inaan u maamulo waqtigiisa. tababaraha ayaa sidoo kale xaqiijiyay in Saka uu ciyaari doono usbuuca dhamaadkiisa iyadoo la filayo inuu ku soo bilowdo kulanka Newcastle United. Kobe Mainoo ayaa si adag uga shaqeynaya sidii uu boos joogta uga heli lahaa Manchester United kadib bilow adag oo kala kulmay Robin Almiron.
20 sano jirkan ayaa xilli ciyaareedkii hore soo bandhigay qaab ciyaareed wacan isagoo ka hoos ciyaarayay Erik ten Hag, balse tan iyo maatinkii Robin Amiron bishii November ee lasoo dhaafay uu ku dhibaatooday dhaawacyo iyo hab ciyaareedka 3-4-3 oo aan si fiican ugu habboonayn. wuxuu kaliya kusoo bilowday hal kulan guuldaradii Carabao Cup ee ka dhanka ahayd kooxda heerka afraad ee Griswold Town. Mainu ayaa xagaagii dalbaday inuu amaah u baxo isagoo ka baqay inuu boos u waayo kooxda, hase yeeshee United ayaa diiday inay ka fogaato tirada kooban ee qadka dhexe. sida uu cadeynayo go'aankiisa, xiddigan dhalinyarada ayaa kordhinaya dadaalkiisa Creighton, wuxuuna si shakhsi ahaan u sameeyay cunto kariye cusub iyo tababaro gaar ah intii lagu guda jiray fasaxii caalamiga ee bishii September. iyadoo uu Casemiro ganaax kaga maqnaan doono kulanka Sabtida ee Brentford, halka Manuel Ugarte uu cadaadis saaran yahay kadib bandhigii lagu qanci waayay. Mainu ayaa la filayaa inuu dib u helo booskiisa safka hore, inkastoo Amiron uu hore u sheegay in Mainu iyo Bruno Fernandes ay isku boos yihiin, haddana ciyaarista labada ciyaaryahan ayaa laga yaabaa inay noqon karto xalka ugu fiican United ee isbuucan. war-saxaafadeed ayaa xaqiijiyay in Liverpool aysan wax qorshe u haynin tanaasulka xiddigeeda Netherland Ryan Gravenberch, inkastoo tababaraha Real Madrid macallimu Alonso uu xiiseynaya saxiixiisa. shabakada loo yaqaan Team Talk ayaa sheegtay in maamulka Liverpool ay u arkaan Gravenberch inuu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee kooxda, isla markaana aysan xitaa ka fakaraynin iibintiisa, gaar ahaan kadib bandhigyadii cajiibka ah ee uu sameeyay xilli ciyaareedkii hore, kuwaasi oo Reds ku hogaamiyay ku guuleysiga horyaalka. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in macallin Alonso uu Gravenberch ka dhigtay muhiimada koowaad ee Real Madrid kadib markii uu si weyn uga soo baxay kooxda tababare Arne Slot, iyadoo uu noqday laf-dhabarka qadka dhexe. waxaa sidoo kale la sheegay in Liverpool ay qorsheynayso inay ku abaalmariso 23 sano jirkan heshiis cusub oo muddo dheer ah si loo xaqiijiyo joogitaankiisa Anfield in ka badan 2028 oo haatan uu la joogayo. waxaa xusid mudan in Gravenberch uu si weyn u soo jiitay indhaha taageerayaasha kadib bandhigii weynaa ee kulankii Merseyside Derby ee ka dhanka ah Everton, halkaas uu weeraryahankii hore Ingiriiska Peter Crouch uu ku tilmaamay ciyaaryahanka ugu fiican Liverpool xilli ciyaareedkan, taasi oo sii kordhisay xiisaha kooxaha waaweyn ee Yurub oo dhan. daafaca da'da yar ee Liverpool Giovanni Leone ayaa dhaawac jilibka culus uu soo gaaray, iyadoo wararka ka imaanaya Talyaaniga ay sheegayaan inay jeexan tahay seediisa jilibka. Leone oo 18 sano jir ah wuxuu garoomada ka maqnaan doonaa muddo dheer, taasi oo ka dhigan kooxda loo ogol yahay inay bedel ku sameyso safkeeda Champions League kadib isbedelka cusub ee UEFA ay soo rogtay. sida uu sheegay qabiirka suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano, Liverpool ayaa booskaasi kaga faa'iideysan doonta inay ku darto dhawaan weeraryahankooda Federico Chiesa, markii horena si muran badan looga reebay liiska. Chiesa ayaa muujiyay awoodiisa markasta oo la siiyo fursad, wuxuuna si gaar u iftiimay kulankii Carabao Cup 2 gool iyo gool ay kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta ee Southampton. daafaca midigta Paris Saint-Germain Achraf Hakimi ayaa wareysi uu siiyay barnaamijka Click kaga hadlay eedeymaha uu ku wajahay, isagoo si gaar ah u xusay inay been abuur ay ku sameeyeen qoyskiisa. Hakimi ayaa yiri, waligay qof iima geysanin dhaawac intaasi leeg, aniga way uga adkayd, welina way uga adag tahay, sababtoo ah marka been lagugu xigto laga qoro aad ay ku dhaawacaysaa, gaar ahaan qoyskaaga. caruurtayda weli way yar yihiin, ma yaqaanaan internet, welina wax ma aqriyaan, laakiin maalin ay aqrisan doonaan waxyaabahan oo kale. ani ahaan inay arkaan been sidan oo kale inta oo laga qoray aabahood waa wax aan fiicnayn, mana doonayay inay cid kale ugu sameyso arrinkan. ciyaaraha kubadda cagta dad badan ayaa isku dayay inay ka faa'iideystaan haddii aynay ku hararsanayn dad wanaagsan, waxyaabo sidan oo kale inta way ku dhici karaan. kadib wixii dhacay waxaan bedelay waxyaabo badan iyo dad badan, hadda goobtayda dadka ugu dhow aad ay u yar tahay, mana ogola cid kale inay soo gasho, ayuu markaas yiri ciyaaryahan Achraf Hakimi.